xaqiiqooyinka yaabin doona. 75% dadku telefoon ay isku mashquuliyaan marka uu wadada kaga soo horbaxo qof aanay doonayn inay la hadlaan. 2 qof marka ay isdagaalaan hadba mid ka baqaya ayaa aad u dhiiran oo la qaban kari waaya. 3 qofka jawaabta degdega ah bixiya haddii isaga lagala soo daaho jawaabta. 4 gabdhaha aamusnaanta badani waxa ay ka garaad iyo caqli badan yihiin gabdhaha hadalka badan. 5 in badan oo qof doonayso dadaal badanna geliso helitaankiisa waa in badan oo qofkaasi uu ka sii fogaado. 6 qofka beenta ku sheegaya toos indhihiisa kuguma fiiriyo haddii uu ku soo fiiriyana indhaha ayuu ka mirigsiiyaa ama uu kaaga birigsiiyaa. 7 dadka farqurista ku liita ee fartoodu ay foosha xun tahay waxa ay ka maskax badan yihiin kuwa farta qurxan dhiga. 8 talooyinka iyo go'aanada wanaagsan waxa bixiya dadka inta badan soo dhaawacmay. 9 dunida waxa ku nool 2 qofood oo si sax ah kuugu eg dhinac walba la kulankooduna waa 9%. 10 haddii uu qof xiriir kala dhaxeeyo aad qalad ka gasho balse uusan ka xanaaqin si aad u raali geliso ogow inuusan xiriirkaasi dhab ka ahayn. 11 ka hor inta aadan seexan maskaxdaadu waxay aragtaa wax walba oo aad jeceshahay. 12 dadka ugu talada wanaagsan dunida waa dadka noloshoodu ay hooseyso ee faqriga ku nool. 13 cilmu nafsigu badanaa waxa uu dhahaa dadka quruxda badanaa waa dad single ah ama iskaabulo ah badanaana xiriirada kuma guuleystaan. 14 caruurta marka ay yar yihiin degan waa kuwa marka ay weynaadaan dhib badan. 15 cilmu nafsigu waxa uu ku leeyahay lamaanaha sida joogtada ah isku dagaala waa kuwa sida dhabta ah isku jecel. haddaba daawade nala wadaag qodobka ah sida gaarka uga heshay ama ku soo jiitay like da muuqaalkan oo share garay. waxaan sidoo kale ka codsanaynaa inaad soo booqato page-keena Faysal Cabdi Faarax aadna follow naga soo dhahdo Instagram-ka. mahadsanid.